Ajenda ya kufungua soko ya miraa huko nje ni ajenda na ni jukumu. In suuq loo raadiyo qaadka oo waliba suuq dibadda ah waa shaqo u taala dawladda dhexe ee Kenya, ma ahan shaqo u taala dawladda gobolkan Meru iyo ismaamul hoosaadka. sidaasi darteed anigu waxaan raadiyay suuq dibadda ah oo qaadka lagu iibiyo. markii aan Somaliland tagay waxaan rabay in halkaasi suuq qaadka lagu iibiyo aan ka helno. marka ujeedadaydu anigu mar walba waxay ahayd in suuq dibadda ah loo helo qaadka aan ku beerno gobolkan Meru. hadda waxaa soo baxaya warar ah inaan anigu sabab u ahaa qaadka dawladda Soomaaliya ay joojisay. sideen sabab ugu noqdaa? sababtoo ah warka aan helay waxa weeyaan in qaadka dawladda Soomaaliya ay u joojisay sabab ah iyadoo shirka IGAD Muqdisho lagu qabanayo. sidaasi darteedna wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya aysan rabin, isla markaana ay jiraan warar sheegaya in al-shabaab ay rabaan in diyaaradaha Muqdisho ka digaya ay soo ridaan. sababtaasna loo joojiyay qaadka diyaaradaha lagu geeyo Muqdisho. waxba kama jiraan oo sabab uma ihi in qaadka la joojiyo. waa dacaayad aniga la iga been abuurayo. hadda waxaa dhacday in arrinkaasi qaadka la joojiyay aniga la ii saaraya inaan sabab u ahaa booqashadii Somaliland aan ku tagay. qatar ay hadda nafteyda ku jirtaa. waa dacaayad la iga samaynayo. waa mid aniga la igu bahdilayo. Kuingia Meru namna gani? Wacha tulete propaganda ya miraa ya kupiga munya. Hiyo tu ndio inafanyika.